ciidanka beesha ciise oo maanta u dhawaaday saldhig ay lahaayeen ciidanka beesha Samaroon xiisad culus oo laga soo warinayo tuulada Habaas ilaa tuulada Bolol wararkan helena waxay tilmaamayaan in saacad walba laga cabsi qaba inay mar kale gooda isdaraan ciidanka beesha ciise iyo kuwa Samaroon haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay amurta ku saabsan sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha Samaroon oo hadda sheegay war la yaab leh oo ah in xeerka buuga ciise ee ogolaadeen haddaba suldaanka guud ee beesha Samaroon miyuu isdhiibay maxaase arrintan ku kalifay faahfaahinta ayaan kula wadaagaya waxaan kale ku soo gudbin doonaa xiisad culus oo laga soo warinayo gudaha magaalada Ceergaabo ciidanka waqooyi bari iyo sidoo kale kuwa maamulka Somaliland oo is hor fadhiya qodobadaasi waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiib yaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kugu horeysay ku soo bir waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga ee noogu reeb qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa dabcan ciidanka beesha ciise ayaa la soo warinayaa inay maanta 20 kiiloomitir wax ka yar ay u jirsadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka beesha ciise labada ciidan way is afsaareen oo xabaddu inay bilaabato qarka ayay u saarneed markii odayaal dhaqameed isxilqaamay ay soo kala dhex galeen labada ciidan haddaba sidee bay wax u dhaceen billa ilaa dhammaad ayaan rabaa inaan xog faahfaahsan ku siiyo ee si degan muuqaalkan u daawo xogta aan helayno ugu horreyn waxay tilmaamaysaa in deegaan la yiraahdo Habaas oo maalmahan xiisad ay ka taagneed ay ka ambabaxeen ku dhawaad 24 gaadiidka cabdibilaha ee la yiraahdo kuwaas oo la sheegay in askar hubeysan ay saaran yihiin ciidankaasi waxaa la sheegay inay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa beesha ciise oo roondo ama howlgal sameynayay haddaba waxay ka dul dhaceen ciidanka beesha Samaroon oo iyana aan ka fogeyn aaga tuulada Xariida oo la sheegay in halkaasi bilihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaq ciidan uu ka socday labada ciidan inay xabad isku bilaabaan ayay qarka u saarneed waxaas soo kala dhex galay odayaal dhaqameed isxilqaamay oo la sheegay in ay arrintan si degdeg ah u soo kala dhex galeen si xaaladda loo qaboojiyo wararka iyo macluumaadkan helayna waxay tilmaamayaan in saacadihii ugu dambeeyay ay arrintu noqotay mid aan waxba laga qaban karin oo xaaladdu ay gaartay meel aad u sarreysa laba sargaal oo ka mid ah ciidanka maamul goboleedka beesha ciise ayaa waxay tilmaameen in iyagu aysan xilligan doonayn daandaansi laakiin haddii lagu khasbo inay dagaal ay qaadaan ay ciidanka beesha ciise dagaal qaadi doonaan isla markaana ay weerari doonaan saldhigyada ay joogaan beesha Samaroon beesha taagta daran ee Samaroon ayaa la soo warinayaa in bilihii la soo dhaafay ay hub aan tiro badnayn ay heleen halka beesha faca weyn ee ciise la soo warinayo in xataa Jabuuti hubis ay siisay Ismaaciil Cumar Geelle uu ku amray taliyaha militariga Jabuuti Sakariye in uu hubeeyo beesha ciise taasoo la sheegay in ugu dambeyn ay dhaqan gashay xubnaha la hadalnay qaarkood sidoo kale waxay tilmaameen in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto ay noqon doonto xaajadu mid aan waxba laga qaban karin yacni dhinacyadu ay toos isku farasaari doonaan oo la arki doono dabcan xabadda oo halkeeda ka bilaabatay iyo xaajada oo faraha ka baxday suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa la soo warinayaa inuu toddobaadkii la soo dhaafay la hadlay mid ka mid ah saraakiisha beeshaysa oo u sheegay in isagu hadda uu quustay sababtoo ah cudud ciidan iyo sidoo kale wax walba oo ka hortaga beesha ciise waa la la'yahay dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin beesha ciise dhinac walba waa ay ka dulman tahay inay dagaal qaadana xilligan waajib ayay u leedahay sababtoo ah haddii aysan dagaal qaadin waxa ay xaaladdu tagi doontaa meel aan waxba laga qaban karin waana in ugaaska guud ee beesha ciise uu joojiyo hadallada bootada ah taa beddelkeedana uu la yimaado ficil si adag u weeraraya beesha Samaroon si deegaanadooda looga saaro Samaroonka iyo ciisuhu hadda waxay rabaan in ay wada hadal u furmo laakiin xeerka buuga ciise in la soo bandhigo ayaa ka horeysa in marka hore la wada hadlo sababtoo ah laba dhinac oo isku aragti ahayn in ay dagaal wada galaan ayaa waxay tahay wax aad culus waxaa sidaas si lamid ah jirta aragtiyo kale oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah dadka ku sugan gudaha magaalada Ceergaabo waa gudaha magaalada Boorame kuwaas oo labada dhinac ugu baaqay in wixii wada hadal iyo wada xaajood ah Somaliland looga dambeeyo taa beddelkeedana odayaasha dhaqanka beelaha ciise iyo Samaroonna iyagu ay xaajada qaboojiyaan haddaan dib ku xasuusiyo waxa ugu weyn oo hadda ay ciisaha iyo Samaroonku isku hayaan waa arrinta xeerka buuga ciise
arrinta xeerka buugga ciise dabcan xilligan waxay gaartay meeshii ugu sarraysay heer waxaa la gaaray ay dhinacyadu isku urursadaan ay xaaladuna gaarto meel aan waxba laga qaban karin xubno saraakiila qaarkood goordhow waxay ii sheegeen in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto ay wax badan khaldoomi doonaan oo ay wax badan isbedeli doonaan laakiinse marka hore loo baahan yahay in si deg dega xaajada loo qaboojiyo oo wadahadal iyo wadaxaajood xaaladda loogu dhammeeyo beesha ciise iyadu waxay leedahay xeerka buugga ciise waan soo bandhigaynaa halka samaroonku ay leeyihiin xeerka buugga ciise iyo wax la halmaamatoona lasoo bandhigi maayo taasoo dabcan xaaladda dab kale ku sii shiday sida ay dad badan aaminsan yihiin dad badan oo arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin xeerka buugga ciise in lasoo bandhigo wax iska caadiya laakiin qodobada xeerka buugga ciise ku jira oo sheegaya in beesha ciise deegaanadooda ay leedahay beesha samaroon ama beesha samaroon deegaanadooda ay leedahay beesha ciise ayaa wuxuu yahay qodobka ugu weyn oo dabcan dhinacyada ay isku maandhaafeen arrintana ku keeni karta ayaa la leeyahay gacanka hadal toos ah iyo in dhinacyadu ay toos u dagaalamaan deegaanka habaas dhowaan waxaa ka dhacay dagaal kooban oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ahaa dagaal barbilow u ah dagaal weyn oo ka dhex qarxi kara beelaha ciise iyo samaroon dad badan oo arrimaha la socda waxay leeyihiin beesha ciise waa inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku difaacanayso deegaanadooda waana in si deg deg ah ay xaaladda u soo gebagabeeyaan marka laga hadlayo qodobada la ysku hayo si walbaba ha ahaatee inkastoo hadda xiisadu ay jiraan haddana wararka la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in xiisaddu haddii ay sidan kusii socoto ay wax badan isbedeli doonaan oo jawigu uu jawi kala noqon doono haddii aysan si deg dega dhinacyadu uga run sheegin waxyaabaha ay isku hayaan waa yahay qodobkeenna intaas ayuu ku dhan yahay qodobkeenna kale ayaynu markana fiirinaynaay suudaanka guud ee beesha samaroon ayaa lasoo werinayaa in laga keenay cod sir ah oo ku faafay baraha bulshada codkan sirka ah dabcan waa cod dhowr daqiiqo soconayey oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ahaa cod la soo dusiyey oo mid ka mida gacanyarayaasha suldaanku uu soo dusiyey codka waxaa la sheegay inuu soconayey ku dhowaad 2 daqiiqo wuxuuna ugaaska guud ama suldaanka guud ee beesha samaroon uu codsi u dirayey ugaaska guud ee ciise isagoo ku lahaa walaal aan wada hadalno oo aan xabadda iska dayno somalilan iyo jabuutina midna dan nooma hayo oo aan iskugu nimaano meel dhexe dabcan hadalkaasi ayaa dad badan waxay u arkeen inuu ahaa hadal jilcan oo suldaanka laga faafiyey ceebsa ku noqonaysa sandalada weyn ee uu godobirsaha u hayo khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin ugaaska guud ee beesha ciise iyo suldaanka guud ee beesha samaroon waa inay wada hadlaan oo wada hadal iyo wada xaajood xaaladda lagu dhammeeyo isla markaana si deg deg ah loo soo afjaro wax walba oo khilaaf ah oo la aaminsan yahay in ay xaaladda dab kale kusii shidayaan sidaasi lamida xubno saraakiila qaarkood oo aan la hadlay oo somalilan waxay sheegeen in bilihii lasoo dhaafay beesha ciise ay hub fara badan heshay taasoo dabcan xilligan walaac iyo walbahaar ku abuuraysa beesha tagta daran ee gudubirsaha la yidhaahdo sida si lamida bilihii lasoo dhaafay beesha ciise hub aad u fara badan ayay ka heshay jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaana u hagarbaxay oo u sheegay ciisuhu in ay xeerka buugga ciise soo bandhigaan oo ay jiljileeca joojiyaan taa beddelkeedana waxaa laga cabsi qabaa in xaaladdu ay faraha ka baxdo haddii aan si deg dega xal looga gaarin qodobada laysku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda jawi kale ku ridi karaan si walbaba ha ahaatee dadka arrimaha la socda ayaa sidoo kale aaminsan in beesha ciise iyo beesha gudubirsi ay wada hadli karaan oo walaaltinimada iyo wada dhalashadu ay tahay waxa keliya oo ay dhinacyadu isku qadariyaan loona baahan yahay inay dhinacyadu isku aragti ka noqdaan qodobada laysku hayo si walbaba ha ahaatee hadda codka la keenay ee laleeyahay suldaanka guud ee beesha samaroon ayuu yahay baaris aan sameeyey waxaan ku ogaaday in codkan uu yahay mid xaqiiqo ah oo suldaanka guud ee beesha samaroon uu si weyn uga walaacsan yahay habdhaqankan faraha ka baxay ee beesha ciise ee ku aadan xaaladaha halkaasi ka taagan oo ay dabcan dad badan aaminsan yihiin in ay arrintu faraha ka bixi karto haddii aan xal deg deg ah la helin dad kale oo arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin dowladda jabuuti ayaa ugu wacan in beesha taagta daran ee la yidhaahdo samaroonku ay isdhiibaan haddii xaaladdu sidan ay kusii socoto
qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan xiisado culus oo laga soo warinayo gudaha magaalada Cirigaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag ciidanka Somaliland iyo kuwa Puntland oo isku dhinaca iyo ciidanka waqooyi bari oo gaadiid dagaal farabadan wata ayaa la soo warinayaa in ay ciidamo iyo hub farabadan ku daabulayaan gudaha magaalada wararka la helaya waxay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in dagaal qaraar ay halkaasi ka dhacaan sargaal sare oo ka tirsan militariga maamulka waqooyi bari ayaa goordhow wuxuu ii sheegay haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto inay wax badan isbedeli doonaan oo ay xaaladdu faraha ka bixi karto sidaas si lamida waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ay soo jeediyeen qaar ka mida dadka arrimaha la socda oo sheegaya in si degdeg ah beesha la yiraahdo dhulbahantuhu ay deegaanadooda dib u soo ceshadaan isla markaana ay ka run sheegaan wixii halkaasi ka jira gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markaa waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacnay ee soo dhawaada saaxiibayaal